أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمان شعبك الصوماليين ميل والبا دافات dunida aad ka joogtaan soo dhawaada halka aad nagala socotaan waa difaac qaran TV. bariyaan kala maqnaynay bulshada man nabad baa bariyahan waa kala maqnayn xogaa ahwaalo kale iyo hawlo kale iskaga jirnay. haddan soo noqonnay alxamdulillah, ilaahay baa ku mahadsan. war degdeg aan idin hayaa, soo dhawaada. wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa waxay sheegayaan in hogaamiyihii kooxda Aranjan iyo madaxweynihii hore ee Puntland Siciid Dani xaaladiisa caafimaad aad looga dayrinayo, isbitaallo fara badan la geeyay, sokortiisii iyo dhiig karkiisii ay hawada galeen oo la dajin la'yahay kadib guuldaradii uu kala kulmay magaalada Muqdisho, kadib guuldaradii uu kala kulmay damaciisa ahaa in ra'iisul wasaaraha laga dhigo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sidoo kale handadaad uga timid Axmed Madoobe oo ah hogaamiyaha jamhadda Raas Kamboni ee argagixisada ah ee gacan saar kala leh dowladda cadawga ah Kenya. Dani isma lahayn Axmed Madoobe oo aqri adduun u seegay ayaa maanta ku garbinayo ra'iisul wasaaraha. Dani isma lahayn Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku diiday ra'iisul wasaaraha. Dani isma lahayn madaxweynaha weynaysa. Dani isma lahayn kooxdii Aranjan ee saaxiibada ahaa ayaa ka ku gadinayo oo hinta iyo balowga ka yeeray magaalada Garowe. is-eedaynta, is-caraabinta, is-cunista ka socoto magaalada Garowe. dad u dhow Siciid Cabdullaahi Dani waxay noo sheegayaan in Siciid xaaladiisa caafimaad aad looga dayrinayo, isbitaallo fara badanna la geeyay, welina xaaladiisu xun tahay, lagana yaabo in dibadda loo qaado ama imaaraadka loo qaado ama dowlad kale la geeyo, maadaama ay dhaqaatiirtii Kenyaanka ahayd iyo kuwa ajaanibka ah ku guuldareysteen in sokortiisa ay dejiyaan, dhiiggiisana ay dejiyaan. waxaan leenahay xukuumadii ummadda Soomaaliyeed ee Puntland degan, odayaashii iyo salaadiintii la laayay iyo hooyooyinkii habaarka ka dawooday meel cidla ah dhici maayaan insha Allah biidnillahi alkariim. qof kastoo dadka dhibaato u geystana si xun buu mataqaanaa wax xaalad xun buu ku dambaynayaa sida xaaladan uu hadda ku dambeeyo. Siciid Cabdullaahi Dani muxuu faa'iiday godobtii uu ka galay gobolada Jubbooyinka shacbiga degan, godobtii uu ka galay madaxweynaha talada dalka wareejiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan rabaa bal inaan wax yar dul istaago taariikhda Siciid Dani iyo waxyaalaha uu ka tabanayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo odayaal iyo waxgarad reer Puntland ah oo xiriir kala duwan la sameeyay. Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu yeeray rag siyaasiyiin ah oo isku reer yihiin oo jif hoosaad Maxamuud Saleebaan Cismaan Maxamuud oo boqorka ka mid yahay, Cumar Cabdirashiid ka mid yahay. inta aan doorashada ay wixii la gelin markii qalaasada Boosaaso ka dhacday ayaa Siciid loo yeeray kaalay baa lagu yiri. Siciidow maxaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku haysataa? waxaan ka rabnaa waxaad ku haysato oo qodobaysan oo qoran oo haddii ahaan lahayd deeq caalami ah waxay Puntland u baahan tahay ilaa madaxweyne Puntland aad tahay inaad noo soo bandhigto ninkii ku qabsan. Siciid may wax ma jiraan, ani asaan nibcahay, qabiil ahaan aan nibcahay, mareexaan waaye ma rabo. ورساس ما مريحان إلهي وحسوك هاي الدنيا كرسي أنو نقوم الترياي أهل بينونو كمدحويني الصومالي أنا ويه أدوق وحسوك كيري كرا أنا قاعد ما قبصن كره شخصية دي لبدي نكرد حي وجوني أقول الصومالي هذينه سعيدة ومحاد نكان كوها يستا أو بوتلان أي كتب ليس أو بوتلان كسمي أنا عسان نبعه وروح شر لتي كراسان نبعه ما هي ninkan adigu xoolaha haagana ma qaadan waxna kaama haystee maxaad asaga ku haysataa oo Puntland ilaa aad wakiil looga tahay maxaa Puntland ka maqan oo aan ku qabsanaa? ana isaan nibcay qabiil ahaan aan nibcay riixaan way ka tageen way ka tageen horta ninkan aqliyadiisa noocaas bay ahayd, meesha wuxuu u yimid noocaas bay ahayd. awalna nin la leeyahay oo kooxdan Aranjan ay lahayd oo ayada keensatay ku qaraabanayeen Maxamuud Shidiye groupkiisa ayuu haayeen xoraba ma ahayn ninkan. awalna way ka cudur daarteen beesha Cismaan Maxamuud waxay dhan anagu falaysa minna boqol burhaan baa ka hadlay, odayaashooda ka hadlay, waxa la ninka wuxuu qoladu wax u geysto iyo ciddu wax u geystay. Siciid taladeeni waa diiday, Siciid wax waa naga maqli waaye, magaceena laguma dhibaateynayeen markuu ayaga aadan afkay la kala soo dhaceen. horta waxa Ilaahay mahadii ah godobtii iyo dekanadii siyaasadeed u galay iyo dhibaatadii uu geystay
inaan saakay qof majeerteen ah ama qof maxamuud saleebaan ah ama qof cismaan maxamuud loo daknaynin oo dameer saakay qof haraantiisay dameertaada ku haraantiisay waxaan ahayn aan saaka ka soo qaadayna ma jirto taariikhdana qof siyaasi maxamuud saleebaan oo sharaxan oo xil Soomaaliya ka raadinay qof daarado lagu qabanay mar waa la sii deynaya Saciid waxa uu geystay waa shakhsiyan qof loo labaynayo ma jirto qof loo qabiilaynayo ma jirto maanta asagayna haysaa shacbiga Puntland aad bay u mahadsan yihiin gobol kasta ay joogaan shalay haday ku raaci lahayn waa eedeyn lahayn laakiin bari buu naga yahay odayaashooda dhahay bari buu naga yahay Puntland hadeen Boosaaso hadeen Gaalkacyo hadeen meel walba bari buu naga yahay war doqonta waxay geysato dameerteenu ida haraantiisa ka soo qaada shaqo kuma lihin falaysa minna horta niman ilbaxa helay saasa nimankaas uga dabaasheen laakiin shakhsi ahaantiisa Soomaaliyana wax u yaala ma jiro Puntlandna wax u yaala ma jiro hadduu xanuunku maanta haye ka kaco Puntlandna waa lagu sugayaa odayaashana waa sugayaan dad odayaal oo dilayna waa joogaan kuwana sarreey u saaran yihiin asaga godob sokeeye iyo mid shisheeye iyo inta isku qaato tiisi asahaysa ardaagiisa laga haystaa si xun umur ku dambeyn doona insha Allah biidnillahi alkariim inta Saciid baan kaga gudbaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweynaheeni waa la doortay annaga haddaan nahay dadkan taageersanaashada dawladii hore madaxweynihii hore asana waa taageerinaa waxaan ku taageerinaa wax wanaagsan oo qabto waxaan ku taageerinaa tallaabo wanaagsan oo qaado haddii uu tallaabo halis dalkan ku ah u qaado Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay ka joog waxaan leenahay ka joog waxaan leenahay ka joog waxaan leenahay ka joog ka joog baan leenahay hadduu tallaabo qarankan wanaagsan qaadana waa amaanna si kii shalaan u amaanaynay maxaan Cabdullaahi Farmaajo ku amaanaynay amaanadii loo dhibto ilaaliyay ismihii ciidanka haweenka hawadu soo celiyay madax banaanidii qaranka gaaladu afka laad kala dhacay dawladnimadii wanaagii iyo sharafkii uu nagu hogaaminay hadduu madaxweynaheena lagu hogaamiyo iyo cadaaladii iyo dadka nugulku u roonaado oo curyaamintii Istaal Martiini u roonaado oo agoonta u roonaado oo masaakiinta u roonaado oo shaqaalaha u roonaado oo ciidanka u roonaado oo hogaamiye caadil ah sida maxamed Cabdullaahi Farmaajo kale u noqdo waa taageerina madaxweynaheena way cid noo bedelaysa male waa madaxweynaheena jamhuuriyadda waa taageerina Xasan Maxamuud haddana waa taageersanay laakiin waa saxaynaa Xasan tallaabada maanta qaaday tallaabo qarankan wax tar u leh ma ah nin waliba dadka yaqaanaad ahayd ninka aad ka dhigtay la taliyaha amniga qaranka waa dadkii laga ilaalinayay sirta qaranka waa dadkii jawaasiista ahaa ee basaasiinta ahaa ee dalkan duulaanka ku soo qaaday ee gaalada u shaqeynaya sirta qaranka laga ilaalinayay Xuseen Damuumaaye ninka reer Ingiriiska degan ee bishinta cad waa dadkii laga ilaalinayay sirta qaranka oo u shaqeynayay qolada Sahan Group iyo qolada kale ee la yiraahdo maxay ahayto Heritage iyo sirdoonada caalamiga maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku dhiibay sir qoran oo xafidan oo ilaalsan dal sirtiisu xafidan tahay madax bannaan buu ku dhiibay maanta annagu waxa soo socda Xuseen Damuumaaye magacawday nisa oo xafiisay ka furtaan qolooyinka sirdoonka nisa oo dawladda kale dhex degaan sirti qarankeena waqaf noqoto waxaasan ka baqaynaa madaxweyne waa kula talinaynaa ka noqo la taliyaha waxaad u magacawday dad fara badan oo qubara ah oo xagga ciidanka xagga amniga jeneraalo dad Soomaaliyeed oo aan dambiilayaal ahayn oo dalkan haadaan ka tuurin oo xoga bixinin ayaa jooga mudana madaxweyne dadka u magacaw qabiilkiisa xitaa ka raadi laakiin Xuseen Damuumaaye waxa shalay xilki looga qaaday oo madaxweynaha hore uga qaaday xog qaranka leeyahay bixiyay waana dadka aan shanta sare iyo barki la dagaalamayeen oo ka hor taagnayn in uu sirta qaranka bixiyo oo aan ka ilaalinayno goobaha dawladdu ay mataqaanaa siraheedu yaalaan laga ilaalinay waana basaas u shaqeeyo sharaa'ic shisheey mudana madaxweyne adoo madaxweynaheennii aan ku taageersanahay ka noqo magacaabistaada madaxweyne inta shakhsi qancin lahayd qaranka qanci oo Soomaalida qanci oo annagana qanci ummadda Soomaaliyeed baan nahay laakiin waxaan arkaynaa qatarteedii oo aan arkaynaa waxa ka soo socdo ma qaadan karna mudana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud talada aan ku siinaya waxay tahay inaad ummadda caadil u noqoto xilalka ummadda aad u magacaabaysa u sinaadaan dadka aad magacaabaysana ay noqdaan dad hufan daajusnimo ka hufan qabyaalad ka hufan wax walba xun ka hufan dhaxdhaxaad ah ummaddu aysan xasaasiyad ka qabin inay noqdaan baa la rabaa haddii laakiin adigu ma xumid waa kugu celinaya horena waa u sheegay Xasan Sheekh Maxamuud in xun ma ah
nin tala qaata wey laakiin ceebta taallaa waxay tahay xasan haddaad fiqi tala ka qaadato xasan haddaad mahasala tala ka qaadato xasan haddaad ka qaadato cabdiraxmaan tala ka qaadato xasan haddaad brofesor faaruq xasan sheekh maxamuud ninkii ahaa brofesor faaruq aad tala ka qaadato xasanow ummadda soomaaliyeed way ka hor imanaysaa farmaajo ummaddaas taageeraysa oo ooyeyso ma dhalin lacag ma siin xoolo ma siin jaga ma siin ee habeen iyo maalin u taagan wuu kasbaday wuxuu tusay inuu caadil yahay inuu masaalixda dalkoodii fulinayo inuu wax walba oo ummaddaani ay leedahay uu ilaalinayo in rajo iyo dowladnimona tusay laakiin xuseen damo maaye iyo la taliyaasha waxa aad ka dhiganayso wax la qaadan kara ma aha ummaddaa kaa sii fogaanayso ummaddii marka annaga waan hadda waa inta iyadii hore ee dowladdii hore taageersanayd ee shakhsi maanaan taageersanayn dowlad baan taageersanayn laakiin adaa maanta isku kaaya diri karo mucaarad naga dhigi karo adaa muxaafad naga dhigi karo waare xuseen damo maaye gruubka noocaas oo dhan oo sahan gruub ah oo shaabadaysan oo jaajusnimada ku shaabadaysan caynte naga ilaali ummaddan ka ilaali gabadha inda guduud ah ninka Jamaicanka qabo waxaasoo dhan waa cadow aan 5 sano iyo bar la dagaalamayno waxaan xog xasan sheekh maxamuud ku soo helnay haddaan nahay shacbiga Soomaaliyeed iyo xogaga sharafta leh ee wadaniyiinta ay weligood taagnaan doono adiga inaadan lug ay kugu lahayn imaaraad doorashadaadii dhaqaale inay imaaraad ku bixin Kenya ay ku bixin labadaba Kenya waxay kugu diiday inaad dacwadii badda geysan ninka ragga libintiisa waa loo qiraa inaad dacwadii badda geysan mudana madaxweyne imaaraadna shalan kugu qasaarnay wala siciidani baan wadanaa labadaas waa ka madax bannaantahay hadda hay soosgeyn waad ka madax bannaantahay hadda hay soosgeyn imaaraadku waxay wateen Saciid Cabdullaahi Dani Kenya waxay wateen khayre iyo Shariif labadaasay ku dagaalamayeen dawladda cadawga ee Kenya labadaasay wadatay khayre iyo waxay wateen Shariif Sheekh Axmed oo lacag 10 milyan soo siiyay oo Peter Munyo soo siiyay waa cadahay inaan been ka sheegnana ma doonin xasan sheekh maxamuud labadaasba waad ka madax bannaanayd qaab cadiifada iyo qabyaalada iyo qolooyin isku darsaday iyo wax waa isugu ka daro adigu saasaad ku soo baxday laakiin waad ka madax bannaanayd labadaba maanta labadaada is hoosgeyn karo maanta labadaada is hoosgeyn karo shalay dalka markaad ka tagaysay iyo maanta aad dalka timid oo lagu dhiibay wax lagu wareejiyay inta la igafay waxaan iskama ima waxaan dagaal adag baa loo soo maray 5 sano iyo bar baan u taagnayn oo difaacayno ilaalinaynay waxaan maanta lagu dhiibay shaqo waxa weeye muddo laga soo shaqeynay waxaad ku cimri qaataa madaxweynihii 5 sano iyo bar fadhiyay oo aan hal buushna dhisan dal iyo dibad ka dhisan madaxtooyadii ka lugeeyay guri kiraale ka degay wayna kugu yiri inaan ku taageero ku garab istaago ummadda Soomaaliyeed u sheego dadkii taageersanaa u sheego iraahdo madaxweynaha talada hay'adda la shaqeeya oo taageera oo garab istaaga dibad iyo gudow wargabnimadaas fiiri war sharafka fiiri war karaamada fiiri war waxaan wasaqda ay kugu hareereysay ku ceebeen maanta waxaad ahaydbu waxba kuma haysano waxaad ahaydbu waxba kuma haysano maanta waxa laga rabaa madaxweyne Soomaali baa tahay dadkan Soomaaliya madaxweyne u tahay Ilaahay baa kaaga dhigay saad doonto ku imow madaxweyne Soomaaliyeed umada u cadaalad sabay dadka dalkan iyo diintan iyo ummadnimadeena duulaanka ku ay qatarta ku aan naga ilaali hadda inta garan weydo adigu taala annagu waxaan ku naqaanaa madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud bad madaxweynaha bad waa ku taageersanahay waa ku garab istaagayna jamaahiirteena xogaga wadaniyiinta Soomaaliyeed ee mutadawiciinta waa ku garab istaagayna habeen iyo maalin haddii laakiin aad wax qalado waa ku saxaynaa waxaan ku leenahay war hooy ka joog xasanow jidkaagi ma ka joog mucaarad kugu noqon mayno wax kale kugu noqon mayno waa ku saxaynaa hadda qaladka caawa aad ku bilowday oo aad bisinkii ka tagtay oo aad ka bilowday ayadda kor ka bilowday nama anfacayso ummadana ma anfacayso cadawgii dalkan laga ilaalinayo waa Mike Biden baa laga ilaalinay dalkan ka ilaali ka ilaali Mike Biden intaas aan kula wax kale kuma dhahin waxa ku sugaysa xaalad adag baa ku sugaysa marqaati ka ay xasan maxamuud maanta waxa magaalada tuulada deegaanka diif
deegaano hoostaga lagu xasuuqay shacbi Soomaaliyeed laba nin iyo gabar welina waxaa leynayo rajiimkii Axmed Madoobe ee Kenyaanka wati geeridu iyo dilalkii iyo xasuuqu waa socdaa dhibti waa socotaa shalay adaa ninkaan nagu sharciyeeyo na dul saaray sida aad nagaga tagtay kii ka horeeyay uga tagay kan ka dambeeyay uga tagay adiguna aad ugu timid maanta madaxweynaha Soomaaliyeed xilma doonaysid madaxweynaha Soomaaliyeed bata ninkii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo inta xil qabta mar labaad ku soo noqdaata ummadda waad ogtahay waxa dhex yaal dadkan maanta ma daaweynayaan qorshaha Axmed Madoobe oo wata iyo waxa uu ku joogo dad maanta uu daaweynaya ma aha dad baa guryahooda 12 sano soo moog dad baa ku agoontoobay dad baa ku xoolo beelay dad baa ku baahday dad baa ku burburay dad baa ku dhibtooday intaas oo dhanna waxa weeye waa rajiimka halka fadhiyo aad uga tagtay rajiimkaas halka fadhiyo 13 sano 13 jirsaday ayaa ummadda dhib ku hay war shakhsigaas iyo dadka deegaanka inaad u kala waxa la rabaa u kala xaqaato shakhsiga fudud ummadda dhaaf deegaankana xoray ninka ummadda dhaaf hadda inta sameyn weydood galab istaagto wax dambe oo inoo dhowran ma ahane waxaan leenahay waxba dhowran maynee rabbow dhagaxyo soo daadi ummad inta ka badan lama haysan karo waa tanaasulnay inuu asaga imaadaan ku tanaasulnay inuu madaxweyne beel noqdaan ku tanaasulnay heshiiskii waxaan ku tanaasulnay Addis Ababa agreement midkii labaadaan ku tanaasulnay xiirane kii saddexaadaan ku tanaasulnay labadii sane maxaa Cabdullaahi Farmaajo intaas waa naga badan tahay wax dambe oo ku noqonayno ma jirto waxa laga rabaa waad ogtahay ninkan inuu gardaran yahay ummadana xoog ku haysto dul fadhiyo 12 sano dad la xasuuqayay oo dhul waxaan lahayn qaatay naf waxaan lahayn cunay diyaarada nagu garaacay qaarna badda nagu ceejiyo xeebta nagu dilay mana sii hortaagnaanayo kuwaan masaakiintu soo dirsadeen nama matalaan dib u heshiisiin wax jiliyahdo oo dagaal ah oo qabiil dagaalsan ma jiro ana hadda ku sheegay Mareexaan dhaxdiisna ma dagaalsano ogaadeen iyo Mareexaan ma dagaalsano haween iyo Mareexaan ma dagaalsano digli iyo Mareexaan ma dagaalsano dir iyo Mareexaan ma dagaalsano jireer iyo Mareexaan ma dagaalsano wax dagaalsan ma jiraan fidnada meesha dhax taala waa ninkaas mujrimka ah ee gaalada wato ee shalay argagixisada ahaa ee adiga ku dhibaateeyay ee shariif dhibaateeyay ee madaxweynaha ka horeeyay dhibaateeyay adiga hadda aad ugu timid ummadda soo dhaaf hadda inta sameyn weydo hatii anagu waa Soomaaliya waa tashanayna dawlad dambe oo aan ku tashanana ma jirto waa iska saarayna hadda inta sameyn weydo waa la yaqaana waxa la sameyn doono kuwaan maanta baa la qordiir iyo meelaha tagtaagan dib u heshiisiinaan Jubbaland loo sameeyna gadal loo wax dagaalsan ma jiraan Mareexaan muqal dagaalsan Mareexaan aad aragteen war muqal gadal kala qabta aragteen waa shacbi ma dagaalsano dadna ma dagaalsano siyaasad ahaan baa loo diidan yahay ninkan baa la diidan yahay nidaamkan baa la diidan yahay ciriiriga war geed ka baxay ma ahana ummadda dhaafiya intaas la rabaa in dadku wada qaataan haddii inta la qaadan waayo wixii laga helaa waxa laga siiyo waxaan rabaa odayaasha dhaqanka ee waxgaradka Soomaaliyeed ee Jubbaland ee gobolada Jubbooyinka iskugu taageer Bahri Xasan waa in ku soo socdaa iskugu taageer Bahri ugaasi hadda leedahay hadda waxgarateen jireer iyo jireec digir iyo marif diir darad Garbahaare iskugu taga xas waxa la rabaa tala midaysan iyo mowqif midaysan oo adinka masaalixdiina in ka turjumaya shalad ceel ku dhacdeen shalal layn dagay shalal leedin hoday daraada leedin hoday ma soconayso xoolo ma tiin intaana dhib baan ku socday dhibaata aan ku socday waa dhig baxayseen gurihiina baad ka maqantiin maanta maaday kasmalla ayaa gurigiisa ka maqan oo caawa xamar qaxooti ku ah xero ku jirta xamar qaxooti ku joogo Suldaan Idris Guriyow ayaa caawa qaxooti ah oo nin Shambara ah oo gasha ku dhashay baan caawa tagi kan gurigiisa kismaayo ku yaal waxa gurigiisa joogo ina fara weynaa magaaladiisa haysto oo dan goraya ka yimid oo garaw barasaabka ahaaba u diiday inuu yimaado Axmed Madoobe u diiday waxa u diiday mana gaarana u diiday Khalid baa u diiday Basam baa u diiday ciyaalkan walaashan reer maxay ahayto maxay magacoodi war meeshii maxay ahayd magaceedi sheegoosh iyo nagab ka yimid baa guryahooda caawa dadka deegaanka u diiday war sheeqaashi deegaanka degreed baa caawa qaxooti ah oo meel jaamacadda maxay ahayto carwada agteeda qaxooti ku abuul degan oo gurigoodii iyo beertoodii iyo barahoodii iyo dhulkoodii la qaatay oo qaarkood ganacsadooda lagu laayay war gaal jacel baa caawa ma taqaanaa banaanka duurka fadhiyo intaas oo dhan dadka deegaanka waxay u baahan in la isku aruuriyo oo la isku keeno
waxaan ka codsanaynaa odayaasha iyo waxgaradka iyo intii ahlu caqli ah garbaharey fariista iskugu taga waa idinku soo socdaa ninka adinkoona qabiil iyo mid isku kala saarin ugaasidiina wata Soomaaliyeed xasan la hadla xasanow ninka meesha noo fadhiyo waa taqaanaa bahalkan dhig dad cunka ah ee dhirwaaga ah ee maxishoodaha ah ee meesha noo fadhiyo ee adigu ay shariif nooga tagay ee adigu nooga tagtay ee farmaajo nooga tagay ee adigu hadda nagu soo gaartay waa 13 sano waay inta ka badan ma qaadan karno dad dagaalsan ma jiraan dadku waa ehel walaal baan nahay isku mid baan nahay waxba nama kala dhaxay waxba ma taqaan magaalada dagaalsan iyo beel la darsan ma jirto fidna iyo ma taqaan dhibaato ninkaasa nagu ahay ninkaana soo dhaafi haddii dalku dawlad ka jirane dawlad ay ka jirtane dalka dawladda ka jirta ee Kenya faragelinta naga daadhe oo ninkan ciidamada shaqay doorasho fiican ku qabo kana saarnaa kaameesh إماليزيات كريم الحدودة هذا أنت سامعين كرد أنو واتشرينا ضد بانهاي دولتنا ناهين ما كنت تشرينا ولا سحريننا وحكروا ماشي يلا مجرن وإني كاسو نصور ضعفا برايدا وكشة كيني يكونسل كي وحن أو نوح سعوني ما أنت صار أضياشلي أضياشوا عن ليه ترى مديسن عقلي مديسن قضب مهم إن أتكلم هذا الشامر كود برق لبرهبو برق عد كلا حلبان هو تقي واحد سقى الله السعودي وهذا وسوق فرتاقي ام وسوق ودب وسوق حيسربا شهاده سورينتي ظالمينتي وسوق حيسربا كلابتي مدو وسوق حيسربا لو باهنو ما ان لا hadlayna dhaha waxaan la hadlaynaa adiga madaxweynaha Soomaaliya ma tiid soo iyaha kuma dooran soo xoogaal ma tiid war meel maanta 12 hadii maamul goboleed meesha ay ka jirto 13 sano na dul saaraya waxaana soo dhaafay هذا ندافع فكرة ناس دافرينه واحد مو كود هالله نمله أنت موقف كينو أضياش الله يا أضياش الله يا أضياش الله يا وحجرت كان الله يا أنت ساعرف إنه وقع وأنا ترى هذا صدق يتمن سنة أو أنا ندورن أو أنا شقة كل حين أو أنت صوت لبعتها أنا جسوا جارتي أو ضد كيني اللي واحد سوقي أو تعدي كفسي بركعين بوب دل أنت من أول يوم خذوا القادر أنت كبر مدول القادر كذا مدحون الصومالية تاين نكان صوت في ماشي دولة أدي كينيا تاني ماشي ونقول كينيا ده الصومالية وحين حريص أما نفرح أنك قادر ومن نقول كنا حريص ونص مدحونا تاين كذا بيني حق وحنقول إن هي مواطنين بأن هذا الكودين كل بريء يكون نقولنا أو أن مامل أنو أن لا نهان سبسنا حق ولا إن هي نصوت في وحن هذا أنت سمين ويدو هذا أنت ما سمين كريه هذا ودل كيننا كينيا هايستانا مدحونا مقعويال بارين محمد ما قبكرو تدخوا تشني أنا وادريرنا والسكا وحي إلهنا كلاسية وحي إلهنا كلاسية قادنا وحي إلهنا كلاسية أيام قادنا كلا قادنا لكن يانا وقت القدو من يانا وقت دنبا كله من دالم كاس إيو ما هبل باندين هاي بالغورديرو حق صدري حق كي كنيسة عيال كنيسة سوكري سي أون ديلاوي مرسل غليف صدري دقنتي أمام صدري متقانا فرتاق واحد صدر واحد ينفع ما واحد هو مستقبل كيني شرف كيني كرامة ديني دل كيني إيب مقرو وحن لنا هاي أرنت حسيت تحضر له نكر وين كوسا صعدا طلاب كلا دعي ميسو وإذن إيمانا يا وإلا فريسنا يا قرتينا ديبتا واحد حق لنا الشيكتا وحنا قادنا الشيكتا واحد بقى ماشي يلا مجرا أضياش دقن كالله اللي يا وليبا بال والبق ودقن كادقن أضياش الجرباري وين يسيتقن كل سكتان حسن شيخ محمود runtan u sheegtaan marka hadduu xasan masaariixda ummadda wada dhan u diido ilaahay baa dad in ka dhigay wiil iyo geel iyo xoolana waa haysataan gaalada ay haysato iyo ninka mujrimka sirgoyska isdaafi abalaawe dilaawe hadduu abaal leeyahay danigii inta ku daba dhimanaya maanta kuma dhignaadin dani maanta wuxuu Kenya u joogaa oo dhiikarka ku kiciyay oo sakaraadka leeyahay waa madoobe oo yiri ana ra'iisul wasaaraha rabo Cabdirashiid Jire Qalinlaan u rabaa أنا قادر أيوه أنا إيه قادر يا حسن الصوت لستي وردمرها لي ورم أنا قاعد اللي هذا قدرت كوجري ورم أنا قدرات دادت كي سوماليا كل ده قلبي ورم أنا ظلمي كوجري بستاجي ور أنا أنت كوم مري ور أنا أروح حتى أضيجي جناح ستيس عيسى محمود ويناد دلي سعيد الدوكس ما يكون دلي يروح ولا ما هو يدين كرو ورم أنا واحد صوت قدام كوجري ودبعتك كوجري بعد اللي هذا ما أنت رجل سارم كويستا ورهورين بوكيرو
waxba lama joogtid ha wareerin tan masaalix dad way annaga aan rabnay ra'iisul wasaaraha weligeed ma naanfulo soo ahaan jirtay adiga dhiikarka waa kala fadhiya Kenya ku dacweynaya oo leeyahay ninkii aan taawaday ee intaasaan u maray ee diyaarad isku soo biimeeyay ee aan wax u waxiyay maanta aniga igu dhagano kursi ra'iisul wasaare igu haystee Kenya maxaan ka yeelaa may qabataa inuu ninka ballan lahayn diin lahayn wanaag lahayn waxba uu sarrabin qabiil aqoon saasa kuugu filan daniyo isbarta madoobe arxalaawe isbarta diinlaawe hadduu abaal leeyahay ninka soo qanda walaa ka soo kaxeeyo wajeer ee seedigii ahaa ee walaashii qabay xasan turki gaajo wuxuu ugu dhintay iyo rafaad iyo xanuun buu wuxuu ugu dhintay deegaanka guduuday oo ilma adeerna ay ahaayeen isku qoysayn waxna ka dhiga asaga حسن أحمد مذوبي دحوليسته دينلاوي دقر قبي هدو مانتا أبا ليا حسن تركي بقاجة معلول يداوال عان وقود انتي قدودي دقاك قدودي أساقا سوكريي وصوبري وانتا قعنتكو هيو علاك يقنقاق هذا حقوق قطري ماي مبدأ كستو آمن سيها داود سكرتو قدي بلها وويشو كوهين لها واسسو ديبو ديه لها وحبور رادين لها سيدا حسن دانا ويزبن لو سو حري ayuu dhihi lahaa odagu waa isa soo dhiibo waa yeel waana cafisuna weydiistay intaasuu dhihi lahaa waa ninka kaga tagay cillada xasan turki oo gaajo u dhintay iyo rafaad oo cillada waraabuhu ku cunay waa ninka seedigii ahaa in adeerkii ahaa waxna ka dhiga soo qadawla oo guryaha rinjiyeeyo oo ka shaqeeya wajeer ka soo kaxiyey abaal malaha kaas diinna ma lahan waa shakhsi xun oo aad u liito kuwa asaga hoos fadhiyana waa ka sii liitaan waayo waa fataliin waaye waxay ku qanceen walaashood iyo hooyooyinkood in lagu horfuulo dad diin lana maahan waa falaysa minna way waxa ninka la shaqeeyay waxa ag fariistay waxa soo dhan anu qofna uma aqaano qof bil aadan uma aqaan qofkii ugu eedeynaya waxa leeyahay hadduu walaalka ka soo cesho hadduu adeerkaaga ka soo cesho hadduu adeerkaaga ka soo cesho aniga hay eedin maxaad u caydahay dhina wax walba dhahaynaa Ahmed abaal malahana in adeerkii uu cidla kaga tagay oo adeerkii ahaa oo seedigii ahaa oo walaashii qabay حنون ضيع وحقوق أنت الجدودي ماشي اللي هرجسيري يجلب أكتدا داو ودري كري أنت الصوك حيوض ويل بالنقطة يدادو واسسود ديبو حنانين كري علو كجتة قفوا مركا وهوس جدا ملك دلي دقنت الدلي هيدا علو كجتة يا ولقين علو قفنا مك حيستني كان أو رجي محاكمتي أو رجي صاحبتي أو رجي ما يصح لكن هو دبل أجنسي جاجوس عن حشون عن النحن قفل بنسحهم بودرا marka adigu marka dhiikarkaaga iyo sokortaada hadii la dajin way adeeg ku taal anay shaqo kuma leeyahay adaa balaayo doontay xitaa waxaad nagala dagaalantay waxbarashadii wasaaradda waxbarashada ahayd wiil yar oo miskiin oo raxaweynaho oo garbaarey kaan ku yaal horteeda inta faynus wax ku aqrisanaa miskiin ilaahay guuleeyo oo ka dhigay number 2 ayaa tirisay u noqon kara waxaan nagu soo hobaysay inda koray iyo mujrimiintii askartii Kenya naga soo weerartay oo carruurteena leys lacag baad ku bixisay ilaahay ba ka jazaynay dambiyada aad naga gashay iyo godobta aad naga gashay waa mid ku qoran shakhsi ahaantaada lagu insha Allah lagu ciqaabi doona ilmahaaga looma dakarayn doono daalim ilaahay ka furtay baana tahay labadii xaq darro ku heshiiso saasa u dambayso dulmi baad ku taageertay godobta tolaad baad xambaarsatay mid Soomaali baad xambaarsatay diin la'aan baad qaadatay sariirtaada ku urur ilaahayna kaama kiciyo xanuunka ku hayaan kuleen intaasaan leeyahay waxaan rabaa kuwa waxaan arkay xaflad qabanay محمد ديق هيلا من اللي هذا فنانة أو هي قبل دارنا وحليه أنجا رئيس الوزراء هربنا بين بعد شو شيء يسا وإن الجوابان ربع حفلة نروح وقفزين أنجا رئيس الوزراء هربنا أو غير هبلا ما اللي هدين ما اللي ينسين أيو ما اللي ينسين كرو صوماليا قف إثيوبيانا رئيس الوزراء لما الصين أيو إن الجنة قلنا للسنين إن حمزة للسنين مذكران للسنين لكن عمر ولا سنكرا تقبلوا جوارن قيلني هذا بلا تاجر قيلني ولا سنكرا حقه لي محمد امين ك قدوميها تعرض قدوميها كنقضي افمدو فديو ولا سنكرا وموادن ابينا كل شيء اسقون كل شيء اديغا يهيلو يقلب دغخ يفتقلح ينا رابي رئيس الوزراء رقم نقولسن نفترض بينها وشيء dalku waxa way shuruuc baa taalo dastuur baa yaalo xasan sheekh maxamuudna kuma dhaco qolo kale kuma dhacdo محمد صلاة عمر اسكو رير باتين اسكو عيد باتين ورئيس وزراء الصومالي وكان نقول كرا بواد الصومالي ابي كل شيء اسوي كل شيء
لأوجي هاي واي سومالي واي لكن أديك أديرك أدواتو إذا جرى قلل هدواتو من لو آمنية وإن إثيوبيان هم من لو آمن لا بد إن لو عمر إذا جرى قلل واي ما دار واي وأنا من أولياء أنا راع علي بيسكين إن جرى قلل واي آمن كرا أنا بالك أنا عمر ومدح رئيس وزراء ولا قدي كرا حسن هاتو كذا كرا لكن كوا إثيوبيان حسن جرى قلنا مدحوني لبعض دولة دجان كالصومالي ده ولا الكيسوي أسقو ورجي إثيوبيا كيمد وحكوسو برتي جواسيستي تكريجا جامعة السيفل سيرفيس قاعد السباق الصباحيو لبعض كوني صدق حديبان كوكل حافظ جرج اللي جادو أنا أصعد من الحلبانة ودجودية وقلد اللي أبرشة أصعدان وقلت جمش أنا هذا إذن عديني يهبل هلو يكوى قبصاني يهبل قلدو من قريسان رئيس الوزراء ملا لين كديك كرو حسن الصومالي وكل جوريسان موادن غيرك أذكر تأه ولكن أبيه كل شيء أصله كل شيء أوجي كل شيء وحانه لما ديكرو أنا هذا ندحي وركاسف عن لغات موادن صومالية أول أوجي ماشي كل شيء أبيه كل شيء لهجدي سلا جرنا يا صوماليا مواد رئيس الوزراء كنا نقول لكن ما ولا قلب دقح ولا فطر دقح ولا أديك فعرها وين ملاك قيليو قف هذا وضعتها لقمة دقيقة كرو أنت أصوص صاري أحمد مدوبنا لقمة دقيقة وايو موادنين صوماليين معهن وموادنين إثيوبيان رئيس الوزراء حقوق بسطان أبي أحمد هدي حسن شيخ محمود وقاعدين وقرت وطل صوماليين وأنا دد إهلا ودقان كدقن قف دقان كل الشيء أما بقول كل الشيء أما باي كل الشيء أما كل شيء جبده هو شيء جبده دحى أبيه كل شيء أووي كل شيء ولا شيء الناسي حتى واحد كلا أكون أودي ديفر أودي دينا أمارسي وأنا شخص في عن دولة جعل وأنا أحسن نقل له آمن له صاحب تنوي يقانو أمانة يقانو عقلي أخلاق إلهيكم النايستي أو أن وحبلك هو جيسنين وكان نكى إن شاء الله شقيني وزيرك هو أها هل كلمة حن والله لقاهين دونتي صافي عن إنه عمر دونتي والله أنا بريد شيء محمد صلاة عمر دونتي صافي عن دون في عن بولي سو سكرر ما أصلا أنا جرق قال لي ورولي عليان رأى علي بإسلين كان لك وجاجوس إثيوبيان هو كان هو الصومالي لبضوا كاسان قاعدين كاسان أنا يقول دجانة يقول ضلأ هذا هو كجونا أكسية هاي واحد أردن والشخص الكريه هو الصومالي نفي النادر أو أن أقون خيامة أو أنا أقون بنت أو أنا أقون جاجوس لماذا أو أنا سكت أنت أقون شري كنت مربع جنب اللورد يقول مدحوني هي مركز على شقين ما يكفي قف كفيري نوع عسل وحيالها لقول دورتها وحيتها دون تيسا أيا وناكسن قف وناكسن وقف وناكسن ياي بواح لقول درسها هذا رئيس الوزراء سيس والله أنا عاو عيل مقبو إنه أمر سي أو إلهي كوجسي والله واد بالدقينا وأكو تاجرينا وأكو فرحينا دقبلوا كان أبيه سي السجن دقبلوا بيش تاجن أبيه سي ويوانين دقان كدقان كل شيء أبيه كل شيء هو كل شيء سي محمد أمين سي رجل نوع عساس أقول سي لكن لحسن ننجو رئيس الوزراء من نقول إيه كرت أنا من نقول إيه بنا قادنا إنه منا كايل إنه حمسة 6 سنة مجو ليك اللي هذا عبد السيد جرق اللي 7 سنة مجو ولكن يوم مدحونك وحينك حسن جرق اللي كلك ورمض وحما قاعدة كرتدي صومالي بحربنا دل كان وديرنا حيو أو نحيو أو أن دل كلا لهين محمد صلاة عمر دل كي سوا كانوا لي كان أديك أدقنت وحكوا لي كانوا وحكوا لي كان سي كاسو ديبو هادو كلا شقينا والله بعدين أريحنا كفهم كأركين قيانا كأركين عدو النمنا عاد كأركين لبعتنا كوب جيسنين سادو آمنتو يكولا شقينيا قف من ريحانها هاسين رئيس وزراء انت عن ضدك نقولينه وعن كحروبينه ظالم كان أنه وزيرنا مرمنه رئيس وزراءنا كمرمنه وحان ربنه إلهي أنتي مجرته أنه إيش بريدة وقضاء ما نقول جرتور تعسكر بحنه مركزان صون نقولينا مركزان حلينا لكن آرن جان انت تصين لهيد نرجع على كادجي والله أنا نبيك وشيء أنا نكاسي ومدنا وكبد بعد الساعة دنبنا قرنك كانوا جلسوا دستور كنا بربرين مثل لكن لاجي لحسنوا
تقرأ الله السعودي بان رئيس الوزراء كاغا دغايا ما قادنين لاجي كنيان كلا سعودان كاغا دغاينا ما قادنين ما اوغلانين dalka markaas adaa iskala habasha doonta la aadaysa laakiin aniga waa dadka waan aqaanaa aad baan u aqaanaa Soomaaliya muwaadin baan dalka intaasan soo joogay qofka shakhsi baan u aqaanaa hooyadii baan garanaya shakhsiga xunna waan aqaanaa shakhsiga fiicanna waan aqaanaa shakhsiga xun waan garanayaa saakaytina Omar wallahi oo billahi oo tala 12 ka ceel waaqad ka keensatay iyo xasan dheeraha iyo wallahi billahi koobiyaan u siin lahaa Soomaali ahaan saaka hadii mid dooran lidhaa ayaga asan dooran lahaa asagan dooran lahaa xasanow dagaal adigu gacagahaaga ha ku abuuran been la suba sheegayo ra'iisul wasaaruhu waa inuu ahaadaa nin Soomaaliya ku dhashay aabihii ku dhashay awowgii ku dhashay ma ahan nin fiiq ku dhashay nin nagab ku dhashay nin sheegoosh ku dhashay nin hargeela ku dhashay aabihii ku dhashay muxuu iga leexjaa maxaan ku aamini karaa dalba uma dhiiban karo fiiri dunida waxyaalaha la ilaaliyaa jiro dunida dawladaha dimuqraadiyadda xataa waa ilaaliyaan qofka waa inuu ahaadaa muwaadin deegaanka dalka iyo dadkii deegaanka ku dhashay waa inuu ahaadaa hadduusan ahayn waxba xilka intaa la eg looma dhiibi karo xilka intaa la eg looma dhiibi karo waa inaad saas u ogaataa xasanow aday ku taallaa haddaad halkaas aado oo halkaas aado annagu waxaan leenahay dalkeenni waa la qabsaday TPLF waa qabsatay waxaa la isku daray xuduudii Soomaali galbeed iyo Soomaaliya waa la isu furay NFD iyo Soomaaliya waa la isu furay ayaan leenahay calaykum salaam eed soo haddii aad laakiin directionka iyo waxa aad xaq u leedahay waad garanaysaa heshiiskii 60ka dastuurkii laba nin oo majarteena ra'iisul wasaarayaalka ahaa aadan cadna madaxweyne ku ahaa nimanka walaalaha Itoobiya kamid Axmed Madoobe kamid yahay laajibay ahaan lacag baa la siin jiray dadkoodina dhex joogeen been in la soo sheegay ma ogolaanayn laajibay ahaayeen dadkoodii bay dhex joogi jireen Cabdirashiid Jirqalna walaalkii jabhadii buu kamid ahaa laajib uu ahaa lacag la siinayay meel bay fadhiyeen halkaasay joogeen xilal iyo waxaas lagama sheekaysan jirin waa dastuurkii aadan cadda waay qayr la siigi alla u naxariisigi waqtiyaashii jacaylba waxaan soo careeyay wixii ogaantaana ku dhacay waxaan rabnaa qofka muwaadinka ah ee aniga xuquuqda ah ee deegaankan ku dhashay oo aabihii ku dhashay oo ila ah waa ixtiraam baan leenahay xilka inta qabtuu qabanaya laakiin fiiq iyo sheegooshii qabri daaraan kamid hargeele iyo dheer baan waxa aan ka imaayay shiraaban ka imid Soomaaliya madaxweyne ka noqonaya no ra'iisul wasaare ka noqonaya ma ogolaanayno mana ka yeelano cid laga ogolaanayno ma jiraan hadda cadeynay taas lama ogolaanay wadaniyada noocaas ma garanayno anaga meesha laga keenay waxaan ku leenahay haddaan nahay dadka Soomaaliyeed ee wax garadkoodii ee siyaasadda har iyo habeenba u taagnaa xasanow yaan haadaanta laga rid haddaad siinaysa leelka sahaasi dhulbahantahaas dalkan u soo dakanoobay oo halgankan dalkan ku soo dagaalamay oo ummadda u siman tahay oo Soomaali u siman tahay si awrtablahan si inkastoo midka awrtablaha jaajuus debel jaajuus oo dhaqan xun uu yahay oo kii gudoomiyaha laga dhigay oo aad shakhsi xun u qurmoon uu yahay laakiin dad fiican oo ku jiray leelka sahaasi leelka saha dad wanaagsan baa ku jira si odaga waalan si Sakariya xita odaga waalan Sakariya si dhulbahantaha si in u qiimo badan Soomaaliya daarood baa jira Cali Ciise Cabdi ka dhig Soomaaliya daarood baninka uu qiimaha badan ugu aqoonta badan Cali Ciise Cabdi waay si cidiidi karta male Cali Ciise Cabdi nin Soomaali ka aqoon badan ka fiican ka aaminsan ka qabil fiican ma jira si asaga meesha xuduudaha baasha hal aadina gudaha la soo adeer ma aanan ku leenahay madaxweynaha baa tahay baasha hal gabi dhicin haddaad nin dhulbaantaasi soo Cali Ciise Cabdi Siisana ma jartana ma diidi karo ma reexana ma diidi karo awr tablana ma diidi karo laylka sana ma diidi karo cid diidi karta male haddii kale in Omar si ogaadada la rabto in Omar si haddaad la rabto dhulbaantana Cali Ciise Cabdi si laylka saha odagan waa Sakariya darto si laakiin بان إيه
adeer waxa weeye meesha qof walba wasiba nidaamku dalku loo kala leeyahay xaduudan la isku soo furno waa tan dhibaatada keentay annaga tii Axmed Madoobe nagu sameeyay naga badan mid daba ma qaadi karno mid kala ma qaadi karno ra'iisul wasaarna wallahi baan saaf ku noqonayno billahi Soomaaliya hadii koow jamhadeen iyo dagaal baa bilaabanayso waana u sheegaynaa dunidoo dhan baan u sheegaynaa halkaan la soo fariisanayna mana qarnayno aniguna aqoon baan u leeyahay hebel saacadu dhashay meesha ku dhashan garanaynaa haddii daarood saaki dadkaas baantaana cidada kale ka qaban eedna qabanaysi ma diiday haddii cawliyahan wax la damacday in oo marsi haddaan qabil libca waa kaas haddad maxamed sumeer wax la damacday maxamed aaminka dhobley joogo waa nin aqoon-yahan doctor markuu wuxuu cuno waayey wuxuu sameeyay Axmed Madoobe bahdiray dalkii niman tuug oo fiiq iyo ka yimid qabri daarri iyo meelaha ka yimid ka qabsadeen ayuu dhobley golo degaan soo ilmaha nafta u biisho oo u noolaado ayuu guriga deegaanka gudoomiyaan waa afbadow yiri halkaas u fariistay waa nin deegaanka maxamed aamin qof walba yaqaana anagu waan aqaana waa ragii ku jiray casmaro ku jiray uu ahaa waa nin doctor wax yaqaana way si laakiin anagu nin mid ka yimid shay goosh iyo Ethiopia ki aabihiina ku dhashay Axmed Madoobe dhibku lagu haystaa naga filan mid kale ma qaadi karno war waxa la rabaa dalkan qof la xajalo u hayo oo geedkan uu ku dhashay geedka uu ku dhashay garanayaan rabnaa u naxayaan rabnaa wada dhalashada iyo deegaanka ilaalinayaan rabnaa Soomaalinimada ilaalinayaan rabnaa dalku iib ka ahayn billahi alayk ya Xasan Sheekh Xasan Sheekh wadani baan rabnaa Soomaaliya ku dhashaan rabnaa no laaji dibka Axmed Madoobe lagu geystaan naga badan laaji kale ma qaadi karno war si ragnimo loo bareer anigu bareeraya beenidi ba sheegay dambina ma aha Ethiopianimadan ku faani arrin sar kaaga dhigaya no war dalka waa leenahay la xajala naga hayso war dalka waa dalkayga war dalka waa dalkayga meel kale anagu aan leenahay ma aha qamaar ma galo ciyaarna ma galo muwaadin Soomaali dhalay ah oo luqadda ma ahane la og yahay la sharabay baan rabnaa dalkan inuu hogaamiyo laakiin Ethiopianimadan ku faani no Ethiopianimadan ku faani bal ilaahay baan ku maxamed deeq hello oo aan garanayna meesha oo ka yimid shay gooshi qabri daarri ka yimid wuxuu leeyahay xasanow haddaad annaga haddii ra'iisul wasaaraha noo diiday eega kan waxba heli wariyaa dee ma ahan xasan madaxweynihii ma ahan dee amxaarada ma aha madaxweyne Abiy Ahmedna ma ahan xasan madaxweynahan annagaa dooran madaxweyneheenni wey dalkeennu madaxweynuhu Soomaaliya madaxweyne Ethiopia ma aha adeer ma aha madaxweyne Ethiopiana xasan waa madaxweyne Soomaaliya adeer orod meeshaad ka timid aad oo abigaaga iyo dalkaaga aad xaafad waxay u gudubto waa xasarade tan annagaa iskale intaasan leeyahay xasanna taladaasaan siinay kuwa kale taladaasaan siinay madaxweynaha waan taageersanahay wixii qaldan waa ka qabanaynaa maalintay Soomaali kala dhaqaaqayso waa maalinta aad qof laaji ah oo aan dalka u dhalan lama siin kartid qof laaji ah oo aan dalka u dhalan maalinkaas siiso maalintaas dagaalkeeni annagu waa inaan dalka ka badbaadinay noqonaysa intaasaan xasan uga baxaya waxaan rabaa xasan digniin kale inaan siiyo roobla waa soo noqday kooxdii maafiyada daba soo noqotay dalka inay daba goostaan bay rabaan shalay xilka waa lagu wareejiyay daraad lacag bay la carareen madaxaana furan 30 malyan haysto alqabyaala carab way soo noqdeen bangiga hadda qayla nooga timid bangiga dhexe Soomaaliya shaqaalaha bangigana soo wacay ciidankii waa la bedelay in bangiga lacagtii lagu dhiibay la balaqaystaa la rabaa war adaa dalka mas'uul ka ah war xasanow adaa dalka mas'uul ka ah war xasanow adaa madaxweyne dalka ka ah war adaa ummadda xukumo war madaxweynihii dalka adaa ah war kooxdaan daba goosi bay rabaan war bilal qaraadis weeye war in lacagta cunaan bay rabaan war adaa wixii malaayiinta $1 ee lagu dhiibay bangiga cayaagto bay inay cunaan rabaan waa tuug ilaahay ka furatay waa madaxana furan waa rooble waa 30 malyan haysto war dalka adaa lagu dhiibay ka ilaali war dalka ka ilaali war ciidamo meesha geey war saakayta inay isla soo baxaan bay rabaan hadda la soo wacay
واكا مسج كي سو دعي انا يرد بنكي كشقينها سو وعدي war xasan sheekh maxamuudow war madaxweyne dalka adaaka war adaa u dhaartay war roob la kooxdiisa maafiyada ah orgaxaare way soo hungoobeen imaaraadkii bay ku soo hungoobeen safiirkoodii baa la cayriyay كقبو ور بدبادي ور ummadda badbaadi war dhaqaalaha ummadda badbaadi war magacaaga ilaali war magacaaga yaa istiraasho laga dhigan war xasan sheekh maxamuud oo digniintaas ku siinayna war xasan oo digniintaas ku siinay war tuugti waa soo noqotay war bankiga inay dhacaan bay rabaan war tuugti ka qaba dalka war rooblu waa soo noqday war imaan laawi waa soo noqday war xaabaqaadkii baa soo noqotay war ummadda ka qaban kullayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh